وأنا كفر حسنة هنا سوق يبقى الفريقان البرلمان كالفردقي سيكوال سنة كان لبقون يلحي طبعا وحمايا وكي أفراد لكن وكي كوال سنة كان وقت أدق بين الصومرني دور مقالنا سي كميلقارة وابا وشوقني أما هالنقطة صحداري توقي إرقوي ولا عدي مقالنا نبوه وضلئي ميلب ضنبا إنوها كميلقارة فردي كميلقارة ميل حفيسي كماين اللهين ميل هوي كماين اللهين كنتي وقتي عدق وعدق باينا صومري وحابة قول إن وحابة الإسلام مرهوري وخاتمه بارلمان كي حكومة يقولها سريدان كبا دبايش كلا راعيان إنه ينشره وإنه هدنا مسؤولية دي أود إن إنك استبهلا إكاتة أنا مقصود بحنا تاسع بقوله أنا يدون كهم بليانا يا ويدون كبوا قاعدين يا وأوجهي طبعا مالين اللحية لما تنبه كتشوفتان الإحباء مكان ميلها كلا تنتمادين الشركة ساد تنتمادين سوق له الرئيس يعني وعادوا كلا فوق كنت وحي تسيسار رئيس كأنا هي تشبهد مني دي خاطمة مركي هروا يتراه تشبهد بان ونقونينا حيالا بدن الله دول قادم كري لها باجرتين لكن واحد مقدور بالمي واحد وين يتشبهد كسل بلادان دي تشبهد لي هاي مقعيال لقوب بحنايا وابا حبتر بالقورن وارقق حسا لقورن وادد كسور جيدا نبض يحسلوني ذا لقورن لكن وحيالها اللوغو بعكري واي انتا فرح الله ينوغو فيقو يكمدتها هاي يكمده بارلمان كان سلقوا هيدها دستورية يا خاتمة عيلادة إن مدداس حتى إن الصور نافتي إلى بشي جنوري لما كوني يلبيه طبنك إلى مانتا وحاول مهمة مقعهان هو تشيرو لكن بارلمان هان ولما كوني يافري طبنك ياي هاوشي سبلوغا إسرائي هاي وقتها عين كتيرنينا تي وقت عدد وعدة كسر بحكرتها اسكجر بقرته أما تشبهد مربى ماشي ومريو يدك قرعة أما عداد أما مراء أما بالحل بهوستيس وحارنيو برلمانكو هدو سنشرين انت أسنا سيالة بدن ووابلين إلها وعدة فرق فيقا وقبضنا waa inta cadowgayno inta tiraha ma jiraan hada baarlamaankoodeenu ka warhayna aan Soomaaliland ha noqdeen ama Puntland ha noqdeen ama Xamar oo ahayd meesha loo wada socdo ee arrimaha Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya iyo qarannimada Soomaaliya laga raadinayo madaxweynihii meel uu ka soo saaray anigu dastuurka kuma hayo waa maqlaya gaalo u marxato furayso leh واللي هي شروع الصومالية ميل أفصحيسا مدحوينهم إنه برلمان كأورانك كرو حولها مفرق جلينيسا ميالو ميل يكرر دينيان أو شرعي أما الدستور ككتير تمشت برلمان كي الصومالية ده قرن قواكا إنكم ظروف تأينا هيسا هي إنت عينو إلهي أم هدينا إنا ترتان إن كالفردقي كوادنا وما أنت ينوفرني هاي كي لبعضنا إشاء أكتوبر تبنات ينوفر راندونا وحان كرة شوينا هاي وحان كرة شوينا هاي إنه لاسحان وتكشر الدون هذا الآن سكير ما
hadal aan iska idhin maaha inaynu laascaanood oktoobarta soo socota ku shirno oo baarlamaanku kalfadhigiisa shanaad uu ku qabsado saasaan ku rajo weyna hawl badanna waa laynaga rabaa hawl badan yaa laynaga rabaa yoolkeennu waa kii waa dhulka xorayntiisa waa nabadaynu inaku ku wada noolaano waa nimadaynu dariskeenna kula noolaano waa nabad inaynu geeska afrika aynu ka qayb galno inta nabadda jecel ee inay nabadda ku wada tuuntuunsadaan meel uga soo wada jeeda waxaa yoolkeenna ka mid ah muddo 30 sano aaggeenna dhulkeenna sool iyo sanaag iyo cayn iyadoo soomaaliyaba wax badan aan laga qaban yaan waxbaba laga qaban iyaga meelahan waa lagu sheegaa NGO meelahan marmara oo marba inaku tala xumadeenna aynu kuwo waxoogaa hooyoo ku ba'a ina sii aynu qoorta iskaga duubno ama hargeysaha jooga ka iskaga duubaya ama hadda kuwa ugu dambeeyay ee WFP qoorta iskaga duubay waa Puntland hadda maaha waxa iyaku keeneen WFP kuwa reer sool iyo sanaag ee garowa jooga iyaku kama kaambeyn garayn iyaku dawlad dhexe uma tegin iyaku meel wax lagu qaybsaday ma joogaan haddana qoorta waxa iskaga duubayaan dhowrka shaqaalaha ah ee meelaha laga qorqoro ee haweenka u badan yay leeyihiin may aniga mooyo cid kale kama talin karto ayaan daradayna haysaa waxa weeye cid la xisaabtamaysa ma jirto cid la xisaabtamaysa oo berri ka maalin haddii ay inagu kaliftaan ana wareydinamaba rabno oo waabana wareeriseen oo kuwa halka maalin dhaweed marayay lahaa miinadaanu saaraynaa oo annaku dadku waa noo simaye soo idinku dadku idinma sima wixii idinku dhaca mas-uuliyaddeeda idinkaa leh wala markii ugu horreysay wiil raamale oo u yimi wiil raamalaa u yimi markuu u yimi yaa yidhaah markaasay qaylo ka wareegay oo soo idinku maydana dadku waa noo simaye oo cuqaashu waa noo simaye oo culimmadu waa noo simanta oo qabaa'ilku waa noo simaye waa fikirka gaaladu ay qabto afrikaanka lama dhexgeli karo ciidanna ma qoran kartaan meeshaad tegaysaan waxaad tidhaahaan laysu mina annaku cidna ma raacsanin hadda fidmo wale innaka ana markaa baylaha bay u noqonayaan waray hadday yimaadaan meelaha laga soo gelaya kadimada laga soo gelaya ee dhulkan wax looga qabanayo warar may tahay inaynu isxilqaano haddaynan isxilqaamin hadda waxay noqonoo lagula xisaabtami waxa yar ee lagugu bilaabayo haddii si fiican oo la og yahay aan loo isticmaalin hadda warka inoo gelayaa waxa weeye meeshaas meel wax la geyn kara maaha kuwa cali khaliif iyo xukuumaddiisu horeyn dagaal ma rabaan dagaal ballooma iyaku umaba joogaan miday rabaan inay ummadda ku wargalaanna maaha haddana waxaa sumadda iyadu ay tahay waaba fidna walayaal nabad baanu rabnaa inaanu dhulkan ku noolaano fidnay wadaan anagu wixii kale lagu darayay anagu ku dari maayo laakiin fidnay wadaan warkeedu waa naga batay waa maqalnay ama fidna aanu wadno ama wax waajiba oo na saaran aanu u dagaalanno xoraynta dalkana waa waajib aanan cidina noo tilmaamayn cidna aanan marti uga ahayn cidna aanan magan uga ahayn meel kasta oo sool iyo sanaag iyo cayn dhaaxaa la yidhi walaahowgana dhulkaanu xoraynaynaa haddaydan ciidanba lahayn oo maxaad ku xoraynaysaan ma culimo intaad u yeedhataan oo cashar qortaan yaad casharka nimankaa xaggooda saa ku odhanaysaa waroy intii itaalka yaga ah ciidan baa bilaabmay khaatuma ay leedahay bisha May kowdeeda ka bilaabmana mushaharkiisa leh
ciidanka cadowguna wuu ogyahay meelahay fadhiyaan annaguna war sugan baanu ka haynaa iyana keenna waa ogyahay meeshuu hadda saldhigiisu yahay waa ogyahay waxaa loo baahan yahay waray ciidankana kun fayakuun iskama noqonayo dhulku ma xoroobayo ciidankii loo baahnaa haddii aan la uruurin way berri dhulkaasi wuu xoroobi laascaanoodna magaalo madaxda sool iyo sanaag iyo cayn bay noqon ciddii aan ka qayb gelin dhulka xorayntiisa wala laascaanood martibay ku noqon doonaan laascaanood dadka xoraystay yay marti uga noqon doonaan waa go-aan haddaba u yaalla waxoos hoos laysugu sheegayana maaha haddaan leeyahay waana ku celcelinayaa war fursado awal aan inoo jirin baa furan waroy guushu waa inoo dhowdahay war cid gooniyihii hadda sumad kuma dhigan war wixii guule halkaa ka soo baxa waa wada leena laakiin waxaa loo kala yeelan doonaa marba cid walba say uga qayb gashay idinkaa xildhibaanadii aqaatumo idinkaa laydinka rabaa idinkaa matila ciidankaas wuu guulaysan oktoobarna waa aniga sheegaya hadda berri ka maalin hadda waxbaa la kala tirsan doonaa waa ogahay oo fasiraadda magaaladana ku fiican tahay ee makhaayadaha kan inta analysiska ka sameeya warwadaadku warkaa muxuu uga jeeday waxaan uga jeedaa oo ku celinayaa laascaanood cidda xoraysataa yeelan doonta iyo kaa mudnaanta koowaad yeelan doona intii kale ee aan ka qayb gelin dadkooday ka mid yihiin shacabkaas dalka loo xoreeyay bay ka mid noqonayaan war si fiican maysu maqalay